بروسيسك inaad challenge garayso ama tagyiir isbedel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahaan ka koowaad waa search for opportunities raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hayso odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way whatsoever bulshada ay ku sugantahay there is a way hogaamiyaasha dunida la yaqaan xataa kuwa maadiga meelan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen wadankan yar ee Hong Kong la yiraahdo waa taqaanay dunida dabadeedu ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba deedulna waa 420 kilomitir maxaad u malaynaysaa wadan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guriga lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray adoo qiyaas wadan ciidana soo dhoofsanaya ma haystay wadanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadanada dunida ugu dhaqaalaha sareeyo ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2000 wax ku dhow oo technical school sabuulay bay yiraahdaan qiyaas adigu isku wadan yaro inta leeg nin qaayida 20 sanadood hogaamiyay oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa shanta madaxweyne ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yahay ووضن 24 كيلومتر سكوير دولكو هايستا ويا waxay yiraahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdo qof nolosha challenge gareynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka talaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath an al-furas نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صدح يتبن سنادود بي قريش ينتي كحرني ديدني شن يتبن قبيل بيسو صوبان دقينا يقبلانو ديدي مركي دمبار دليرا انصاري اقبشي دا تشانس فرصة دا قوله وهلي ايو دولة دي سلام كو سبي صحابة دي سي هجريي مقالة دي ادري دعات سي هقاكسا دولة دانا اسلامي دوني دا قديدي one chance oo helay isagoo 15 chances waayay fursad waayay hal chance oo helay buu ka faa'iiday idan qaa'idku bay yiraahdaan waa qof search for opportunities bay yiraahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yiraahdaan waa experiment and take the risk ha cabsan tijaabi oo risks ka qaado wax kasto nolosha kamida waxay yiraahdaan cidda riskiga diida yani dhibaatooyinka cidda ka baqata horumarka ma gaadho hatta shirkadka dhaqaale shirkadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kasto aan muqaamaro ka jirin profitku wan iyo meelaha isugu warwareega meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxa ka dhacan waa risk miidhan laakiin meelahaasi waxa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profit walidaalku waxa dhaca riskiga iyo profitku way wada socdaan Soomaalidu maxay ku maamaadaa barti yaqaan bari uma korodha bay yiraahdaan waa yani waa niman challenge gareynayna nolosha haddaad inta taqaanun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha عيارها يكون المامانة لبع عيارات يدين شاغو معنى هذا مركز لأنه فرصة رادي واحد هذا نقوش والله بشي والله اسقدره وفرصة ده هي ديار جرو وبالله هذا فرصة كهرية لي لكن أدقو أنا الديار هين هروس عن ميس هذا أدقو الديار تي لكن فرصة ده دويدان سعن ميسي قوش بيد هذا والله بدا صوت كل ما وين فرصة دينا أطلق لانتي أدونا ديار وطهي وقف مغامرة قال يوكف فايدينيا إنها طهي بيد هذا وحيد هذا وفرصة هي مغامرة تشرسك حرنما ما حتى شيء يعني نينك تشسك عيارة محسمة يا صو تشسك ما تغانين شطرنج كعيارتنا لا يرادو تشسكو وإنجو أمبو قف ولي بمركو هري دقينشي ولا ما دقيه سيدا شحدين وكله شحدين وكهر رئيسا تشسكو يدنا وقد كانوا ولا دقاه لكن كان مركو هري دقين توكو وقرين إنجو أمبو أسكرت هذه وحاجو يالي جورست لكن لجوري وقفكو حكا فكرة تا هداد جورتو محا جوابتو نقص محا صابحية مركاسا وحكو صابحية intaas oo probability ihtimaalat tira badan askariga hadaad guurto kaasu guuri kara alternatives tira badan ihtimaalat
markaas waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa chance jiroo dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad diiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socankaa maaha in lagaa badiya waa suurtagal idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuuda maxaa la sameeyaa dee waad ka quluxquluxsiinaysaa una wixii ka soo booda hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku dayba waa muqaamir marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya waxay yidhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay yidhahdeen enable others to act dadka kale u oggolow inay iyana shaqada qabtaan majaalka bannee madaxda iyo liiderska badh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiriyow loo qaado markaad in cidiba ka ag muuqato ma jecla good leader maaha kaas liidarka dhabtii bay yidhaahdaan waa liidarka dadka soo saara waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari kara John Maxwell leveladiisii afartaha markuu tirinayay levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position waa ninkii kursiga iska fuulay ee dadkuna ku qasbana inuu raaco levelka labaad waxa uu ku tilmaamay inuu yahay permission waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyay oo dabeetana ay wax u ogolaadeen levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production waa qof midho dhaliyay oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxa qabto midhahan lagu daba socdo dadkana taqdiiri levelka afraad bay yidhaahdaan ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka doorashada marka hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay positioningkana wuu hagaajiyey qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihiin wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey dabeetana wuxuu ogolaaday uu delegate gareeyey shaqadii wuxuu ogolaaday inuu qofku shaqeeyo haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso dabeetana tidhaahdid go ahead soco waxay leeyihiin waa martabada afraad ee qaa'idka waxay yidhaahdaan martabadiisa shanaad isaga ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay waa martabada shanaad labadan ba isku dar waxay dhahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye niman abuu ka wada dhigay qaada nabigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo haliyeeya wada ah oo dunida dawakiyey furtay dunidoo dhan fishankii nabi maxamed ee ahaa diintani waxay gaari doontaa guri kastoo dunida ku yaala ama biciisi casiisin oo bidulli daliili bay ku gaari doontaa fishankaasuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fishan dadkan inuu janno geeyo adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey yani waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equipment ka dhigay majaalkana uu u baneeyey qaada noqday marka saxaabo aan taariikhdii hore carbeed lagu aqoon ribci ibn caamir iyo mugiirata ibn shucbi iyo yaqaan waa nimankii rustam ka wareeriyey dowladdii beershi iyo raggii hogaaminayey raggii ka wareeriyey waa nimankaasi waa qaada idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay oo waa maxay enable others to act ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartidoo hore u sii daysid